ra-iisul wasaaraha bakistan shahbaaz shariif ayaa booqday xarunta safaaradda shiinaha ee magaalada islaamabad kadib weerarkii talaadada lagu dilay 5 ka mid a injineerada shiinaha ee gacanta ku haya biyo-xireenka daawus. ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay safiirka shiinaha ee dalkaasi danjira jan sodhag isagoona u sheegay sida uga xun yahay weerarkaasi. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in dowladda ay waddo baaritaan ballaaran islamarkaana ay ciqaabi doonto ciddii ka dambaysay weerarka. warka ra-iisul wasaare shahbaaz shariif ayaa imanaya kadib markii safaaradda shiinuhu ay dowladda ka dalbatay in si buuxda loo baaro weerarka cadaaladana ay horkeento dambiilayaasha. wasiirka arrimaha gudaha bakistan muhsin naqfi ayaa goor sii horreysay wacad ku maray in dowladda ay gacan bir ah ku wajihi doonto kuwii ka mas-uulka ahaa weerarkaasi. wasiirka ayaa rajo ka muujiyey in weerarku uusan si xun u saamayn doonin xiriirka labada dal. injineerada shiinaha ayaa lagu dilay ismidaamin ka dhacday degmada shangaale ee gobolka khayrbaad kadib markii nin kaxaynayay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu bartilmaameedsaday. gaarigii ay la socdeen injineerada oo lala dilay darawarkoodii oo muwaadin bakistan ahaa ayaa la weeraray xilli ay ka soo ambabaxeen caasimadda islaamabad ayna ku sii jeedeen magaalada daawus oo uu ka socdo dhismaha biyo-xireenka la doonayo in laga dhaliyo korontada islamarkaana ay dhisayso shirkadda shiinaha. ma jira cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka balse waxaa lala xiriirinaya kooxaha goonigoosadka ee balluuja kuwaasoo horey u sheegtay weeraro noocan oo kalea. shiinaha ayaa saaxiib dhowlo ah bakistan waxaana uu maalgashi ballaaran ku sameeyey mashaariic kala duwan oo laga fulinayo dalkaasi hase yeeshee badqabka muwaadiniintiisa ka shaqaynaya mashaariicahaasi ayaa waxaa inta badan khatar ku ah kooxaha hubaysan ee gobolka. geesta kale haddaanu jaleecna israa'il iyo xamaas waxyaabaha ka soo kordhe. israa'il ayaa dib ugu yeerta kooxihii ku matelaya wadaxaajoodyadii dooxa ee lagu dhexdhexaadinayay iyadiyo xamaas. wadahadalladu ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha qatar, masar iyo maraykanka ayaa laga shaqaynayay in 6 toddobaad la hakiyo dagaalka. kooxaha falastiiniyiintan ayaa 40 ka mid a israa'iiliyiinta lagu haya marinka khaza ay ku beddeshaan boqolaal falastiiniyiina oo ku xidhan xabsiyada israa'iila. kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa khaza ku haysta ugu yaraan 130 israa'iiliyiina kuwaasoo ay ku soo qafaasheen weerarkii 7 Oktoobar. kooxdii ka socotay dhanka israa'il ayaa la sheegay inay dib ugu laabteen Tel Aviv tan oo caqabad kale ku noqonaysa dadaalada caalamiga ah ee xalka loogu raadinayo colaadda reer khaza. sargaal ka tirsan israa'iil ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in go'aankii golaha ammaanka ee lagu dalbanayay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka khaza uu dhaawacay dadaaladii wadaxaajoodyada ee dooxa. xamaas ayaa ku baaqday in xabajoojinta ay noqoto mid waarta ciidamada israa'iilna ay dib ugu noqdaan goobihii ay ku sugnaayeen dagaalka ka hor. xamaas ayaa bayaan ay soo saartay ku dalbatay in shacabka falastiiniyiinta ee ka barakaca uga maqan guryahooda loo oggolaado inay dib ugu laabtaan dhulkooda inkastoo ra-iisul wasaare benjamin netanyahu si adag uga hor yimiday. ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa talaadadii ku eedeeyey xamaas inaysan doonayn in la sii wado wadahadalladii labada dhinac ee uga socday dalka qatar waxayna taasi dhaawacaysaa buu yidhi go'aankii golaha ammaanka. inkastoo xamaas ay si weyn u soo dhoweysay qaraarka uu golaha meel mariyey isniintii ee lagu dalbanayay in colaadda la joojiyo inta ka harsan bisha barakaysan ee rabadaan ayaa xamaas soo jeedisay in xabajoojintu ay noqoto mid joogta. ciidamada israa'il ayaa arbacadii shalay ahayd sii waday weerarkooda khaza iyagoona mar kale dilay dad badan oo rayid ah. weerarada ayaana si cad u jebinaya qaraarkii golaha ammaanka oo sida uu sharcigu yahay ay ahayd in si degdeg ah uu u dhaqangalo. ra-iisul wasaare netanyahu ayaa arbacadii ku celiyey inaysan u hoggaansami doonin qaraarka golaha ammaanka ayna sii wadi doonaan dagaalka uu sheegay inay ku burburinayaan xamaas. netanyahu ayaa la sheegay inaana wax dana ugu jirin in dagaalka lasoo afjaro islamarkaana ay ka go'an tahay in dagaalku uu sii socdo si uu uga baxsado dacwadda musuq maasuq ee maxkamadda kaga furana. dagaalka oo sii socda ayaa la fahansan yahay inay netanyahu u suurtagelinayso inuu si xeeladaysan xafiiska ku sii joogo maxkamaddana uu uga mashquuliyo kiiska loo haysto. xeeldheerayaasha ayaa qabin dhabaha uu netanyahu ku hogaaminaya maamulka ay israa'il ka dhigayso mid gooni ka ah dunidii inteeda kale. israa'il ayaa la fahansan yahay inay wajahayso wakhtigii ugu adkaa ee soo mara tan iyo aasaaskii dowladnimadeeda waana israa'il oo ku jirta dagaalkii ugu culusaa ee ka gasho bariga dhexe. maraykanka oo ah dalka ugu weyn ee xulafada reer galbeedka ee taageera israa'il ayaa u muuqday mid ka sii baxaya garabka israa'il inta ay maamulka majaraha u hayaan madaxda ugu xag jirsanayd ee hogaaminaysa maamulkaasi.